nin fariinsida ahaa ayaa u yimid amiirkii muslimiinta Umar bin Khattab wuxuuna ka yimid mid ka mid ah dagaalada lagu qaaday cadawga wuxuuna u siday fariinta guusha ciidamada muslimiinta ay ka gaareen cadawga marka ayuu Umar ninkii weydiiyay xilliga dagaalka uu bilowday ninkii ayaa yiri barqadii ka hor sidoo kale waxa uu weydiiyay waqtiga cadawga ay guusha ka gaareen waxa uu ku dhaxay qorax dhaci ka hor Umar waa iska ooyay ilaa garkiisu ilinta ay qoyso ninkii rasuulka ahaa oo yaaban ayaa waxa uu ku yiri amiirkii muuminiinta waxaan ku soo gaarsiiyay oo kugu bishaareeyay guusha ciidamada islaamka ay ka gaareen cadawga adna waad ooynaysaa maxaa dhacay Umar bin Khattab Allah ka raali noqday waxa uu yiri ilaah baan ku dhaartay ee baadilku ma hortaagnaan karo xaq muddo inta la eeg oo dhan ilaa haddii ay dhacdo taa waxa cadeen u tahay in dambigeenu batay ka oo aad gasheen adinka ama aan sameeyay aniga wuxuu intaasi ku daray waxaynu nahay ummad aanan ku guuleysanin qalab iyo tiribadni laakiin waxaynu nahay ummad ku guuleysata yaraantan dambiyadeena iyo tiribadnida dambiyada cadawga haddii dambiyada siman yihiin waa inaga adkaan doonaan iyaga oo qalab iyo tiraba naga badan Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ka baryeynaa gargaarkiisa u ballan qaaday Gaza iyo dadkeeda ee yahuudda dhibaatayneedo Allah ayow sabar badan iyo awood sii walaalaha reer Falastiin kuna sug xaqa Allah ayow yahuudana ka dhig kuwa hadafka iyo yoolka ay aqsa ka leeyihiin kuwa ku qasaaro oo ku hungoobo